gabadhan yar 5 sano oo dugsi hoose ah shaqo guri waligeed ma sameeynin fasalka farshaxanka ay konton qalin ku jibisay hal mar mana aysan sawireenin waxba macallimadii way wareertay waxaan u timid inay eegto waxayna aragtay warqad tirooyin qasan ka buuxaan macallimadii waxay xasuusisay in tani aysan ahayn fasal xisaab gabadhiina jawaab ma bixin waxaana u sii qortay si waali ah kadib macallimadii waxay ka qaaday warqadii waxa ayna sheegtay in casharkii uu dhamaaday qoraaladeediina waa la joojiyay laakiin markii gabadhu miyirkeeda ku soo noqday ma xanaaqin ayadoo si maran qoraxda u fiirinaysa xitaa markii macallimadu u yartay kama jawaabin waxay u muuqatay inay wax kale maskaxda ku hayso ilaa laga gaaray maalintii sanad guurada iskuulka mashruucyadii farshaxankana dhulka ayaa lagu aasay si hadiyad looga dhigo 50 sano kadib arday cusub Amy wajigeedu wuxuu noqday mid sii murugo badan markii macallimadu mar kale dib u jeesatay si ay u eegto laakiin waa la waayay buufin ayaa cirka ka soo dhacay tanina waxay muujisay in maqnaanshuhu uusan sahlanayn dugsiga baaritaan ayuu sameeyay waxna lama helin maalin ilaa iyo habeen raad lama helin macallimaduna waxay maqashay cod ka imanaya qolka hoose albaabka marka ay furtayna Amy ay gudaha ku aragtay Amy waxay fadhiday ayadoo gacmaheeda dhiig ka buuxaan macallimaduna cabsi ayay ku istaagtay faraha Amy weli si joogto ah ay u socdeen waxay isku dayeysay inay dhameystirto lambarkii laga joojiyay waxayna ku celcelinaysay ereyga stop it macallimadu cabsi ayay dareentay laakiin si dhab ah uma qaadan waqtigu wuxuu u booday 50 sano dugsigu wuxuu furay sanduuqii waqtiga sawiradiina waxaa la siiyay arday cusub qaar waxay heleen rockets qaarna waxay heleen flying saucers dhammaan way ku faraxsanaayeen marka laga reebo hal wiilku wuxuu helay warqad jeexan oo tirooyin ka buuxaan nin madow ayaa meel fog ka eegayay markaas saaxiibkiis ayaa u soo orday markii saaxiibku arkay Carly inuu helay warqad qashan u eg wuu ku qoslay wuxuu ku yiri waan sib xun tahay laakiin markuu dib u eegay ninkii madow meesha uu ka baxay isla mar ahaantaasina wiilku wuxuu warqadii geeyay guriga markii uu aabiis weydiiyay warqada aabiis wuxuu u sheegay inay noqon karto hal xiraale xisaab Jake markii hore dan kama gelin xitaa koob ayuu hoos dhigtay kadib wuxuu arkay tirooyin uu yaqaano wuxuu helay taariikhda markay ahayd 9 bishii 11aad 2001 iyo 2996 dhimasho Jake wuu naxay sababtoo ah 1959 ayaa la qoray wuxuu hubiyay dhammaan tirooyinka mid kasta wuxuu la mid noqday masiibo dhab ah iyo dhimasho sax ah weli waxaa jiray tirooyin dheeraad ah oo uusan fahmin Jake wuxuu aaday xarun cilmi baaris ah waxayna u muuqataa wax kasta inay qasan yihiin waxa uu sii baaray tirooyinka wuxuu isku dayay inuu hubiyo in tani ay tahay shil dadaal dheer kadibna waxa uu ogaaday in taariikh badan oo caalami ah ay ku qoran yihiin dhacdooyin masiibo ah oo waaweyn ay la jaan qaadayaan tirada dhimashaduna ay sax tahay laakiin weli waxaa jirtay tirooyin dheeraad ah oo uusan fahmin waxayna u muuqdeen kood ama fariin qarsoon kadib wuxuu sheegay 3 masiibo inay harsan yihiin saaxiibkiisa oo cilmi baare ahna ma rumaysan taa beddelkeedana waa uu ku qoslay dadku way kala fikir doonaan karaan ayagoo hal xirfad ka wada shaqeeya laakiin Jake aad ayuu u dadaalayaa si uu u soo saaro runta isla mar ahaantaasina Jake wuxuu sheegay mid ka xiga inuu dilayo 82 qof isla berito haddana saaxiibkiisa mar kale ma uusan rumaysan wuxuuna ku yiri taasi waa wax kama jiraan mana dhici doonto kadibna Jake halkaas waa uu isaga soo tagayaa isagoo aad u niyad jabsan laakiin weli waa uu sii waday baaritaanka habeenkaasina wuxuu daawanayay TV si uu u eego wararka ku dhawaad saacado uu daawanayay galabtaasi wax masiibaha lama soo sheegin balse wuxuu iloobay inuu wiilkiisa dugsiga ka soo qaado wiilkiisa ayuu la hadlay wuxuuna u baxay inuu soo qaado laakiin wadada waxaa ka dhacay taraafik aad u xun oo xanibaad ah sidaa darteed aad ay jaam u noqotay wuxuu isticmaalay GPS si uu u helo wadada kale laakiin dhammaan wadooyinku waa ay xiran yihiin wuxuuna wiilkiisa u sheegay inuu sugo kadib GPS-ku wuxuu muujiyay coordinates lamid ah warqada wuxuu fahmay inay yihiin goobaha masiibooyinka Jake wuxuu ka shakiyay in halkaasi shil ama masiibo ka dhacday wuxuu go'aansaday inuu aado meesha si uu u soo hubiyo markuu meesha gaarayna wuxuu arkay shil baabuur oo iska caadiya boolis ayaana goobta joogay wuxuu weydiiyay askariga waxa dhacay si lama filaan ah wajiga askariga wuu isbedelay wuuna cararay Jake wuxuu arkay diyaaradda oo meel fog u dhacaysa wuxuu isla markiiba fahmay in saadaasha ay rumowday si degdeg ah uga cararay goobta burburka goobta shilkan waxaa ka jiray dab iyo burbur aad u weyn qaar ka mid ah rikaabka way noolaayeen Jake wuxuu sameeyay wax walba oo ku badbaadin karo wuxuu rajeynayay inuu jabiyo saadaasha sheegaysa 81 dhimasho si kastaba ha ahaatee Jake ma uusan joojin caawinta dadka wax yar kadibna kooxaha gurmadka ayaa yimid goobta Jake wuxuu helay waqti yar oo uu ku neefsado markuu arkay burburka wuxuu dareemay tabardaro wuxuu rajeynayay in tirada dhimashadu qalad noqoto markii dambena waxaa la xaqiijiyay in 82 qof dhinteen saaxiibkiis shaqada ayaa habeenkaas u yimid saaxiibkiisa hadda si buuxda ayuu u rumaysnaa in saadaashu dhab tahay Jake wuxuu bilaabay inuu wax walba shaki geliyo laga bilaabo waqtigii Carly helay lambarada wax walbana waxay u muuqdeen wax qorsheysan Jake wuxuu dareemay sidii wax qarsoon inay hagayaan saaxiibkiisna wuxuu uga digay inuu arrintan ka fogaado Jake wuu diiday sababtoo ah taariikhda dhimashada xaaskiisa way ku jirtay liiska taariikhda ugu dambeysay ee liiska ma lahayn goob ama tiro dhimasho maalintii xigtay wuxuu booqday macallimadii hore ee Amy waxay ahayd qoftii qortay tirooyinka sirta wuxuu weydiiyay
weydiiyey sida ay Amy u dhaqantay maalintii xafladda. Macalimadda wajigeeda murugo ayaa qabsatay. Waxay xasuustay Amy oo si cabsi leh albaabka armaajada u xoqaysa. Jake wuxuu codsaday sababta ay sidaas u sameynaysay, laakiin macalimaddu ma aysan garanaynin sababta. Jake wuxuu tusay warqadii sirta ahayd. Wuxuu weydiiyey inay Amy qortay iyo in kale. Macalimaddan waxay xaqiijisay inay Amy qortay. Jake wuxuu sheegay inuu rabo inuu Amy la kulmo, laakiin macalimaddii waxay sheegtay inay Amy mar hore dhimatay. Raadkiina halkaas ayuu ku dhamaaday. Si kastaba Jake diyaar uma ahayn inuu quusto. Wuxuu internetka ka baarayay magaca Amy, wuxuuna helay ciwaankeeda.